iminkana Soomaaliya safiirka Soomaaliya ee Saudi Sudan iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Sudan ayaa deeq lacageed gaarsiiyay eheliyadii dadku kaga geeriyooday qarixii 14 Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ee magaalada Muqdisho warkaasi waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Nimco Maxamed Bashiir oo ku sugan magaalada Muqdisho 49 qoys oo danyar kana mid ah dadkii uu saameeyay qarixii 14 Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ayaa loo qaybiyay deeq lacageed oo iska soo ururiyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Suudaan iyadoo qoyskiiba la siiyay $700 Maxamed Dhaqane Cumar oo kamid ah ganacsatada South Sudan ayaa ugu horreyn ka hadlay kaalinta ganacsatada Soomaalida ee koonfurta wadanka Suudaan ee taakuleynta dadka danyarta ah ee eheladooda ku geeriyoodeen weerarkii dadka badan lagu xasuuqay ee 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho jaaliyada South Sudan ama ganacsatada koonfurta Suudaan runtii way isxilqaameen ayaga oo duruufo adag ay jiraan culeysyo badan oo dhanka dhaqaalaha ah waxayna go'aansadeen dadkii ay dhibaatadu gaadhay intii ay awoodi karaan ee ay tabartoodu tahay in ay xanuunka la qaybsadaan oo ay sida hadda aad maqlayseen ay walaalaha hore iga horeeyay ay u sheegeen marka runtii ma aha wax ku filan wixii meesha ka dhacay laakiin waa mid tusinaysa in dadkaasi ay ka xanuunsadeen wixii dhacay oo ay rabaan in ay walaalahooda dhibaatadu ay gaadhay ay u sheegaan in aysan kaliya adeecadaha ka daawan oo aysan ka aamusin ay rabaan inay tusaan in wixii dhacay ay rabaan inay maaragtay ay qayb ka noqdaan Sheekh Cabdixaye oo kamid ah culimada Muqdisho oo kelmada diiniga ka jeediyay goobta ayaa sharaxay faa'iidada sadaqada xilliyada dhibaatada ay jirto waxa la baxsaday ee sadaqada la baxsadana way ka fadli badan tahay xilliga barwaaqada iyo deganaanshaha wixii la bixiyo ayadoo sadaqada mar walba ay fadli badan tahay haddana way sii kala fadli badan tahay marka dadkii dhiibteen waan u ducaynaynaa oo waxaan leenahay garashadaas aad garateen inaad dadkiina wax tartaan ilaahay khayr ha idinka siiyo wadan qurba ayaad joogtaan isbedelada way badan yihiin adduunka ka socdaay maalkiina Allah idin xifdiyo Allah idin barakeeyo meeshaad ka soo bixiseen yani bedelkeeda oo ka badan Allah idin soo galiyo adduun iyo aakhirana ku liibaana dadka la soo gaarsiiyay dhibaatada ay ku dhacdayna yani waxa la siinaya ma aha wax u qalma ama la eg wixii gaaray maxaa yeelay qofka muslimka ah ilaahay agtiisa adduunyadan oo dhan hadii miisaan la saaro qof muslimka ana miisaan kale la saaro qofka muslimka ayaa ka qiimo badan marka qiimaha qofka muslimka wax la goyn kara ma aha wax yani la soo buuxin kara booskiisii ma aha laakiin haddana waxa la ina faray inaan iskaalmayno oo xilliyada dhibaatooyinka ay jiraan aan isgarab istaagno safiirka Soomaaliya ee South Sudan Ambassador Hussein Xaaji Ahmed oo uga mahad celiyay jaaliyada Soomaalida ee wadankaasi kaalinta ay ka qaateen taakuleynta iyo garab istaaga walaalaha dhibanayaasha ayaa si dareen leh ugu tacsiyay dadkii lacagaha loo qaybinayay oo u badnaa haween asaaye saaran waxa uu ambassadorku ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay isku tashadaan si looga gudbo gacan shisheeye aad baan ugu dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed kuwa ila jooga South Sudan iyo kuwa meelaha kale joogaba dadka Soomaaliyeed inay isku tashadaan in laga gudbo islaan gurigeeda baadiyeed biyo ku daad ka galay inay tiraaho hay'adaha ajnabiga soo gaara in laga gudbo oo inaga hadda kadib isku tashano wixii dhibaatooyin naga dhacaan inaga isu sheegano waxaan haynana aan isu qooro runtii hadii ay dadka ganacsatada Soomaaliyeed Ilaahay wax siiyay ay mabda'a wala wada fulin lahaa wax dhibaataysan ma lama arkeen Nimco Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho